maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa maanta xukun 6 bilood ku riday gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Sidiiq Dhame mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani iyo qareenada u doodaya gudoomiye Maxamed Sidiiq Dhame ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xukunkaasi inkastoo ay bogaadiyeen garsoorka dhexdhexaadinaya dacwadda labada dhinac haddana waxa ay walaac xooggan ka muujiyeen eedaha lagu soo oogay gudoomiye Maxamed Sidiiq Dhame mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani iyo qareenada u doodaya gudoomiye Maxamed Sidiiq Dhame ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu xorriyadiisii u soo celiyo waxaan u aragnaa waxaan lagu soo eedeeyay maanta haddii ciid maxkamad lagu soo taagay madaxweynahan maanta jooga xabsiga ku jiri lahaa wuxuu madaxweynayaashii hore ka sheegi jiray maanta isaga xabsiga ku jira haddii la isku xukumaayo cid arrimaha loo xidhin ma jirto dawlad iyo madaxweyne aan wax laga sheegin ma jiro qaar baa ilaa qoysaskoodii iyo xaasaskoodii la gaadhay oo hoos loogu daadegay cid la soo dacway cid loo xidhtoona ma jirto waanu ka xunnay in xabsiga intaa leeg oo 6 bilood ah xukunku ka dhacay laakiin arrintaa waxa gacanta ku haya tiimkii garyaqaanada iyaga halka loo marayo iyo halka la gelinayo iyaga garanaya wax kale oo ka digaynaa annagu maalintii leeyahay waa la xidho kiiskiiba maxkamadda la keenaya shirbaan xisbiga galay hoggaanku waxaanu nin dhalinyaro ah oo maxkamadda horteeda yimaada ayaanu jirin annagoo ka baqanayna tallaabooyinka fooshxuna bileysku qaado dhalinyaradii wayna yeeshay ismayso tubin meeshii ma iman nabadgelyada annaga ilaalinayna bileysku ma ilaaliyo xisbiga ilaaliya dhalinyaradii xanaaqsanayd ee saaxiibadii ahaa ee taageerayaashiisa ahaa annaga amar ku siinay maxkamadda nin iman karaa ma jiro markii xeer ilaalinteennii ay dastuurkii Soomaaliya ay miiska maxkamaddeena soo saartay maxkamaddeena foolxumo ku tahay dimuqraadiyadeena foolxumo ku tahay ummadnimadeena foolxumo ku tahay halgankii aynu galay ee SNM boqolaalka maxaan ku dhahdaa dadii kumanaanka qofeedadii ay ku naf waayeen ayay ku tahay gaf iyo caab iyo meel ka dhac ku tahay in maanta maxkamadeennii xeer ilaalintii markay dastuurkii Soomaaliland ka weeday sharciyo xeer ay maanta dhamma ku xukunto inay dastuurkii Soomaaliya soo saartay miiska oo la wada arkayay oo ay refer gareynayeen dastuurkii Soomaaliya dadku markaa wuxuu isweydiinayaan maxaynu diidnayno horta marka horeba ka dagaalanay ilaan qof maynaan diidin hab maamulkii baynu diidnay hab maamulkeenu diidnayna wuxuu ahaa dastuurkaas oo laynagu maamulayay buu ahaa inuu dastuurkii maxkamadaheena yaallo xeer ilaalinteenu ay hoosta ku sidataa caab iyo gaf bay ku tahay ummadan kuwa dhintay ee arrin qadeeda Soomaaliland u dhintayna lixudkay ka soo kicinaysa arrinta kale iyaduna in mulaaxadada mudani waxa weeye xeer ilaalintu madaxweynaha iyaga bahdilaya madaxweynaha iyaga ceebaynaya madaxweynaha iyaga caaya ina marba duruufta amniga si aad u ilaalin jirteen haddaad biliiska tiin darajada qofku dambiga uu ku jiro malba maamulkeeda sida ku ahay kolku argagixisan yahay markuu maadar wax dilay yahay markuu crimes kale dunuub kale farbadan la dhacday yahay iyo markuu yahay xorriyad qowl loo xidhay qof loo xidhayo oo kelmado uu yiri lagu xidhayo dawaa wax kala duwan marka nabadgelyada waad ku farxaysaa marka biliisku ilaalin meel uba joogan laakiin tan oo kale marka aragta haddana waad ka naxaysaa way waxaad sooranaysaa maxaa meesha ka dhacay ma inta loo dhan anu baabuurkayga waxaan soo dhigtay maxkamadda sare waan soo lugay marka inta biliisku dhabu tahay nabadgelyada inaan waan ku faraxsanahay waa watan ku seexdo laakiin kiiskan oo kale ma ahayn inta soo ciidan 7 nin oo biliis oo la keenay ayaa ku filaa dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xorriyadul qowlka iyo xeerka xisbiyada qaranku ay ku aasaasan yihiin xeer number 14 2011 oo xor u siinayay inay wax dhaliili karaan wax toosin karaan wixii qaldan ay sheegi karaan go'aanku ka hor yimina wuxuu ahaa lagu soo xidhay go'aankii degdeg ahaa ama emergency lowgii lagu soo rogay 3 gobol ee bariga taasoo saa la wada socotaan madaxweynihii soo rogay laftiisu uu shalay toole uu ka noqday waxaa dacwadda lagu soo eedeeyay muddadii 2 cisho ee socotay habsamidii uu garsoorihii dacwadda ku hayay uu ku maamulay waan ugu mahadcelinaa xeer ilaalinta ayaa xukunka maxkamadda gobolka Maroodijeex waxa ay ka qaadatay maanta rafcaan hase yeeshee mas'uuliyiinta iyo qareenada u doodaya gudoomiye Maxamed Sidiiq Dhame ayaa carabka ku dhuftay in garsoorka dhexdhexaadinaya maxkiiska dacwadda Maxamed Sidiiq Dhame ay dhex ka yihiin